muddooyinkii ugu dambeeyay isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne uu xidhnaa dawala'aan gaadiid la'aan iyo waliba qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala isbitaalka oo aan qaadanin wax mushahara. Telefishinka caalamiga Somali Channel maruu u kuurgalay si uu wax uga ogaado xaaladda guud ee isbitaalka ayaa waxaanu kula kulannay halka Maxamuud oo ka mid ah shaqaalaha isbitaalka. waxaanu wax ka weydiinay xaaladda guud ee isbitaalka. waxa uu noo sheegay isbitaalku inuu u xidhan yahay dawala'aan iyo gaadiid la'aan, halkii ambalaase u shaqaynayayna uu ka fadhiistay, isla markaana uu ka mid yahay shaqaalo lacag la'aan oo in muddo ku shaqaynayay farantiyeer. waxa uu carabka ku adkeeyay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga qurba joogta gobolka Daadmareer inay dib u soo eegaan gobolkooda isla markaana ay ogaadaan xaaladda isbitaalka lana soo gaadhay gargaar degdeg ah isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne. aniga oo ah shaqaalaha ka tirsan isbitaalka gobolka Daadmareer ahna shaqaale ku shaqeeya voluntary oo ah iska u qabso ah muddana ka shaqeynayay isbitaalka gobolka Oodweyne Daadmareer. shaqaalana aan mahan ilaa 8 qof oo voluntary ah oo iska u qabso ah dhowr sano 4 sano meelaha ku dhawaad ku shaqeynayay. isbitaalka aragtaan waxa weeye waa isbitaal aad baaxad ballaaran leh oo gobol aad u ballaaran ku yaala. asahaatee saa u aragtaa isbitaalku waa isbitaal bilaa dawa ah. dadkii joogay beeshinka ah jiifay waad aragtaan way ka wada baxeen dawala'aan daraadeed bay uga baxeen isbitaalka. waan Burco iyo magaalooyinka waaweyn ugu dirnay. isbitaalkuna waa bilaa dawo wax dawa totally habeeratan meelaan. ambalaskii aanu noo shaqaynayay aan ku tagi jirnay tuulooyinka ay ka mid yihiin Khaatumo iyo Dabagorayaal iyo tuulooyinka inoo dhow beeratadan ka mid tahay 6 kilomitir ah ayaa ambalaskina uu naga yuuraa oo wax gurmado oo hadii nala soo qayliyo la yiraahdo kaala habeeratin ma jirto. ambalaskina waa naga fadhiyaa. isbitaalkina waa bilaa dawo. saaka ugu dambeysay dadkii oon ka saarnay oo ka baxeen markii ay bilaa lagu muddo la waayay. saas waan markaa soo jeedin lahaa. runtii xukuumaduna way naga baaqayga waan dirnay. ayantii dhawid doctorkayga ka hadlay Dr. Ibrahim wax dhagaha jaq noomaysi jawaabana ma soo siinin. markaa waxaan ku codsanaynaa in isbitaalkii sida uu ku xidhan yahay dadkiina beeshinka ay ka baxeen oo bilahay to halkan baaq uga dirayaan hay'adaha caalamiga ah haday international yihiin haday local yihiinba waxaan leenahay waa in maaragtay si degdeg ah isbitaalka ay ugu soo gurmadaan. si ahaan waxaan baaqa u jeedinayaa kale dadiyowga ma garanaysaa jaaliyada ee u dhashay gobolka Daadmareer inay ay si degdeg ah isbitaalkooda wax uga qabtaan. waayo halka markaan jaaliyada leeyahay isbitaalada kale iyo lamid ah jaaliyadahoodunba wax ku tara caawiya gacan qabta. markaa waxaan leenahay jaaliyada Oodweyne oo dhalatay gobolka Daadmareer khaasatan in ay fadhiga ka kacaan oo gacmo is qabsadaan oo ay la socdaan xaaladda gobolkooda ka taagan ama mid caafimaad ahaato. si kastaba ha ahaatee isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cabasho istaba joog ah ay ka soo baxayeen. Barwaaqo Aadan Maxamed, Telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Oodweyne.